بنزل مسحبتي ما تحيدنا قبتي أفراد تحنينا قبت أروح إنه جوت مركي ومسنا كلها تأكل درسنا وإذا عامدونا كلمة بداية سوق لي محيستيك سوستايس مريون كلمة حدا ستم كسوحلو بهاي مشروع يسمين إني صوب الرجال كلمة حل سوقاري يتيم قدامي استيك وسعتو حكور معنا مسنا وحن كلها هردا حدا كحلو بهاي إنك تراد هذا صامين له ولكن وين صودا وسك كلمة يكسوتيسا وحن ما ننسى ستيتك وحن بلا سجل حد مشروع هذا وحن سؤال ويدني سداودياش وحن كلها يسا لوقف مكانها هالرمود قري كران وحن جواب مريون وحن كلها يسامية وحن ديتا وصحنتا برنامجكم wuxuu sheegi doonaa farta deeqda iyo hadii la saxay inta kadib markii ay dhameysay sharxad mashruuca asxaabteedu runada ay u farxayeen sida quruxda badan ay u sharaxday ibdaani markay soo baxday maalinna dusaan waxaan ku dheesay wax miyan qaldi asaga wuxuu dhaayay ma yanka waxa masir xasuus istaayay injee waxaan dheesay anaga waxaan soo saarnay barnaamijkii ay soo saareen kuwii naga horeeyay laakiin anaga waxaan soo saarnay qaab casri ah waxaan adeegsanay AI technology kadib waxaa la injee adeerkeed wuxuu dhaayay waxaan barbardhignay barnaamijkaaga iyo barnaamijka teamkii ka horeeyay iyagana yeerayaan kadib markii la isbarbardhigay sibxu waxa guuleysnay teamkii injee madaxda company waxay isku imaanayeen shir si ay u doortaan dadka kaalmaha ka galay inta kadib waxaa ismuriyeen waxay leedahay labadan tiim isku dhibxay keenayaan doorana waxaa la halkiis wuxuu dhaayay aniga ilaa hadda qofna dooranin marka waxaan arkaynaa inaan duusan asxaabtiisna duusan wuxuu dhaayay dhibkan oo aniga idin geystay asxaabtiisna waxay leeyahay wax kasta waa calaf waxasna waa caadi inta kadib waxaa maanis joosahay waxaan ku dheesay bixisay ayaga waxay dhaayaan ilaa hadda natiijada maysan soo bixin iyadana waxay dheesay ilaa hadda rajayaan leenahay meed leedihiin ayagana waxay dhaayaan oo sheeg sababta tiimkan uu soo bixtay anaga waxaan galeynaa xasuus maalintii ay daanay u imaanaysay joosahay waxaan ku dhahday in shaad jaamacadeed ma oo nimadan nasiib ayaan ku helay tinkeygan waxa ku jira wiil khatar ah xitaa wiilkii sare waa mid wax soo saar badan dadka joosahay waxay dhaayay aniga waxaan rabay mid wax soo saar ah inaan arko laakiin wax uu faa'iido leeyahay malaha inta kadibna duusan fugeynaya daanay wuxuu soo xareeyay si uu soo raadiyo waxa ay man ka qabanaysa marka waxaan arkaynaa daanay oo hurda waxa arkay misraan uu soo fariisnaa wuxuu xasuusnaa daanay iyadii markay ku dheysay gabadha dugsiga sarka maysan soo bixin dib waxa ka xisdaanay asaga wuxuu isku dayay mid aan arkayn wuxuu dhaayay si kadisa ayaan ku arkay wuxuu isku dayay inuu wax laakiin waxa uu xisdaanay waxaan ku dheesay misraan waxa rabaa inuu su'aal ku weydiiyo waxay leedahay waan ogay sababta inaan duusan bent u sheegay wuxuu islaayay qanci maadaama anta uu 5 sano suugaynay laakiin way sababta dadii bent noo sheegtay in basagoo la wuxuu ku jawaab waxa imaanayna duusan wuxuu daanay u sheegay inay gudbiyeen farxad darteed laabta ay gelinaysaa inta kadib way soo wada hambalyeynayaan waxaan raadinaysaa misraan wuxuu naam duusan ku dhaayay maxaad karibtay waxay leedahay waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo asaga wuxuu dhaayay aniga weydii beddelkiisa aniga ayaa kaga jawaabayo inta kadib waxaan arkaynaa misraan oo banaanka joogo wuxuu ka fikiray daanay hadaladeeda soo fikiray waxa maana duusan wuxuu ku dhaayay su'aalaha oo dhan aniga ayaa ka jawaabay waxaan gudbinay xasuus markii uu ku dhaayay aniga weydii aniga ayaa kaga jawaabayo kadib waxay weydiinaysaa muxuu bent noo sheegay asaga wuxuu dhaayay aniga ayaa garab weydiistay maadaama tooshan sano kadib wada kulmaynayeen waxay leedahay sabab uu ku caawiyay asaga wuxuu dhaayay waxaan nahay sidii walaalo kale soo kadib misraan wuxuu dhaayay adii aan ma walaalo waxaasna iyadana ka aamintay duusan wuxuu dhaayay hamaanka habeenkii waxaan aragnaa daanay oo joogto hotelka hooyadeeda wax shaqaalaha meesha joogto mid kamid ah weydiinaysa hooyadeeda waxa meesha maanis daanay hooyadeeda daanay markii hooyadeeda aragtay ismursoominaysa kadib daanay waxay maanisay hooyadeeda waxaan ku dheesay hooyo ku mudeen goormay maatay sikis ayaan ku arkay asxaabteeda ay soo joognay kadib wuxuu sheegay inay kamid noqotay teamka Sandbox waxaan dheesay waan ka sitay kadib waxa ka dheer ka arkay sinjay kaas waxaan arkaynaa naam duusan wuxuu habeenkii oo dhan ka shaqeynaa mashruuc ay shalay ku guuldareysteen isku day badan kadib uu guuleysnay waxay waadintii isku dhaayaan ka waxaan asaga wuxuu dhaayay shirkadda ayaan wax qabanaya dabaabis wuxuu ku dhaayay maanta uu shaqada loo baahnaa dharka xirigtay soo bax dhar fiican ayaan ku gelinaya duusan hooyadiisa waxay dheesay wiilkii qurux iyo dhir ay isku darsaday abiisa wuxuu dhaayay dhar kaniga ayuu uga keenay waadintiisa iyo islaamiina inta kadib isaga daanay waxay soo galeen shaqada maalintii u horeysay kadib waxay arkeen asxaabtooda inay u soo fariisnayaan duusan wuxuu dhaayay company injii qoraalka ay soo saareen barnaamijka ayaan ku dhex daayay waxay dhaayeen jawaabtu maxay noqotay asaga wuxuu dhaayay waan ku guuleysnay inta kadib ay ku farxeen kadib waxa loo sheegay xafiiskooda meeshuu ku yaalo way soo raacayaan waxay imaanayaan xafiiskooda daanay ayagoo fiirinaysa xafiiska injii waxa gadaasheeda Carlos injii waxaan ku dheesay maxaad ka fiirinaysaa xafiiskeena daanay waxay dheesay muhiim ah xafiiskeena waxa rabay inaan barnaamijkan wax ka tuso kuna kula yeeshto kadibna waxay arkeen company ku dhagnaa oo teamkooda istagaalaya inta kadib gudaha ay soo galayeen duusan wuxuu daanay ku dhaayay kursi weyn adiga ayaa fariisnay sida ay way ka diidaysaa oo isku jiida waxa maanis joosahay waxaan ku dheesay aniga ayaa fariisnay idinka daadan rabin waxa maanis misraan waxaan ku dhaayay la taliyay madaxdii waxay kulmayeen 3 galabnimo duusan wuxuu ku dhaayay la taliyaashii inoo kala sheeg misraan gacan yariisa wuxuu dhaayay qofka koowaad waa marweyo qofka labaad waa alkas qofka saddexaad waa misraan iyo qofka afraad oo ah Wilmington Joe inta waxa wish isku arkaan injii adeerkeeda wuxuu ku dhaayay oo ay ku soo jirtay laakiin hal toos ay dhigeen karaysaa idan waxay dheesay maxaan ka ahmed cali asaga wuxuu dhaayay ma weydii in teamkan aniga ku soo daray waqti ayaan galeysay la taliyaa oo noqdayaan waxay ku dhaayay qofka la taliyay noqon rooy mar raayaan doortay waxaan galeen xasuus waxaan arkaynaa gacan yaraha misraan iyo marweyo oo soo taagan misraan gacan yariis wuxuu marweyo ku dhahayaa loogadaas gabadh yaris meesha ka saarnayeen waxay dheesay may loogada Sandbox ayaa loo asaasay gabadha Seris
ayaa laga aasaasay. Kadib wuxuu sheegaysaa sheekada lagu keenay waxaan ku dhaysaa aabba ayaa gabadh Ismaani wiifo ka dhacday wayna ka dhaawacmatay isagana wuxuu dhulka u daadiyay carsi aysan mar labaad u dhaawacmin. Saraan gacantiisa wuxuu dhahay maxaa ninkaas loo abaalmarin waayay iyaduna waxay dhaysaa waa la abaalmarin rabay laakiin 5 sano ka hor ayuu shil galay. waxaan ogeynay in maalinkaas Injay maqlaysay xusuusta kadib Injay waxay imaanaysaa xafiiska la taliyayaasha. kadib waxay Marwe u sheegaysaa la taliyayaasha kale in Injay ay tahay gabadh laga aasaasay shirkadda Sandbox. Marwe waxay Injay ku dhahaysay sidoo aabbaha dhaawac ka ilaaliyo sidaas oo kale ayaa anaga wax kasta guri waa ka ilaalin doonaa. kadib Injay waxay dhaysaa waa mahadsantahay ankal banaanka waxaan arkaynaa daalni oo dhageysanaysa Injay iyo la taliyayaasha oo wada hadlayo. waxa kusoo baxaysa Injay waxaan ku dhaysaa maxaan u dhageysanaysa waxay dhaysaa xaaladda ayaan hiinayay. gudaha ay soo galaysaa Marwe waxay dhaysaa ayaa la taliyo u noqonaa shirkadda Samsung Tech. waxa gacmaha taana halka si mustiraan daalni waxay dhaysaa marur ayaan go'aansanay qofka la taliyan noqon lahaa la taliyan noqonaa mustiraan banaanka ayuu soo waday wuxuu dhahayaa fursad qaali ah isleefsan arkiisa wuxuu xiisay shirkadiina waa in dunida oo dhan laga yaqaano. daalni waxay dhaysaa shirkadeen qofka xiisay waa adiga mar badan ayaad soo caawisay waxaad caawisay maalinka tartanka maalinka xafladda iyo maalinkan gurigeedin ku imaanayay taasoo dhan waxaad u sameynaysaa si aad garab noo siiso. waxaas la gabadh darteed looma waxaan noo sameynaya laakiin wax kasta duusaan ayaa ii sheegay inaad labadiisa walaalihi oo kale aad tihiin waxaan ka codsanayaa inaad la taliyan aad noqoto ka aqbalayaan. intaa kadib kooxda inteeda kale ayay u imaanayaan daalni waxay namduusaan saxibtiisu sheegaysaa in walaalkiis rabay inuu la taliyo u noqdo laakiin ay mustiraan ay dooratay maadaama uu ka tirsan yahay familkooda. namduusaan saxibtiisa way naxayaan namduusaan sheegay u jibnaya ayna fahmayaan inuu camiraya mustiraan wuxuu dhahay maadaama la taliyay su'aalka soo dirtay ma weydiin kartid. mustiraan wuxuu su'aal weydiinaya daalni wuxuu ku dhahay awood maamulnimada ilaa heerka ay aqoon u leedahay. ankal Marwe waxay su'aasha soo kala weydiinaysay Injay ka jawaabaysaa waxaan dhaysaa awooddaas sinnaanta ay ku imaataa waxaan oo dhan kasin laakiin waxay barayaa bahayga waxaan awood u maleynayaa in shirkadii shir ku leeyahay laakiin anaga ayaa iska dhaadhiciyay. Marwe waxay dhaysaa aniga wax la talinaya digaag baantii ma laha idinkaa isku filan. waxay sagalaan namduusaan saaxiibkiisa mustiraan uu kasoo tagaya daalni way kasoo tawagalaysaa. mustiraan wuxuu dhahay haddii aan kuu sheegay waa tan meeshay ka taagan tahay waa adiga. sagaala waxaa muuqatay Injay waxay dhaysaa waxaan ku tusnayay idis waxaa miyay tusin rabtay wayna ka tagaysaa. intaa kadib habeenka markii namduusaan wuxuu guriga soo waday daalni wuu maxsalaaminaya daalni markii gudaha soo gashay wax kasta sheegaysaa iyadayda dhinayayda xirab daalni waxay dhaysaa maxay yahay tagaysaa waxay dhaysaa warkaan aad sheegay maxalis maayo. inta waxaan ka mustiraan oo soo galay gurigiisa wuxuu la hadlay kombiyuutarkiisa wuxuu ku dhahay daalni hadalkii amaanta ku dhahay fahmi doontaa. kombiyuutarkiisa wuxuu ku dhahay ma kadib wuxuu arkay geedkii daalni oo jeenaysay namduusaan. inta daalni waxay keenaysay banooni yar ay namduusaan keenaysay. dhanka namduusaan saxibtiisa oo sheekaysnaa waxay soo xasuusnayeen xilligii isbaranayeen iyaga iyo namduusaan. markii namduusaan ku dhahay saxaab anagna ma space badan ayaa naga banaan iyagana ay ku dhahay heerka gaar laakiin heerka markii aan gaarnay ayaan ku imaanaynaa. xusuusta dhexdeeda waxaan arkaynaa ka hor barashada Homsu iyo namduusaan waxaan la Homsu joogo shirkadiisa waxaan jabsanay kombiyuutarka shirkadda waxaan lagu xujeynayaa 100 milyan haddii ay rabaan feelalka. namduusaan wuxuu arrintaas u xirsaaraya Homsu banaanka ayuu soo baxay soo isku day waxaan badbaadinay namduusaan. Homsu wuxuu wax ka soo sheegay namduusaan wuxuu dhahay aniga ayaa ku caawinaya. namduusaan wuxuu soo waday xaafadiisa subax markii namduusaan wuxuu Homsu sheegayaa inuu helay furaha software-ka oo aan had loo baahnay inuu dadkaas siiyo lacag waxa meesha maana joogo wuxuu lacag siinayaa Homsu oo ku dhahay 100 milyan magaaris laakiin waxay ku taraysaa. wuxuu ogaaday in xaliyay inta Homsu wuxuu dhahay maxaa mar uu sheegay shaqadii darteed ayaan u soo tagay. Ustaadkii Ibrahim wuxuu dhahay shirkadda oo namduusaan ayaan ku wareejinaynaa. Homsu wuxuu dhahay haddii daalni loo wareejinayo aniga ma ogoli. habeenkaas waxaan aragnaa daalni oo joogto maktabadda waxayna gaaribaynaysaa buug ka mid ah waxaan soo qabanaa mustiraan daysa waxayna arkaysaa Joseph wayna waxay mana ka qabanayso. dhanka waxaan arkaynaa namduusaan oo xafiiska joogo wuxuu arkay dal daaqsan wuxuu dhahay ma qarxada uuna ka qaadayaa. wuxuu saaray miiska waxaan soo wacay daalni waxayna ku dhaysaa ima soo dhankeedu socdo waxa kormaana Homsu namduusaan wuxuu ku dhahay dalada miiska saaran taawan wuxuu dhahay wataawanaya maxaan ka galay. namduusaan sidoo socdo wuxuu maqlay qaylo soo baxay wuxuu arkay saaxiibkiisa oo dhahay wax ma arkay. inta kadib namduusaan wuxuu isbitaalka soo qaaday saaxiibkiisa markii isbitaalka keenay wuxuu doctor ku dhahay doctor indhoolmi naqnay sidoo wuxuu dhahay maya waxaanoo kaliya inaha ka galay kadib uu soo caafimaadey banaanka ay soo baxayaan. wuxuu saabtiis kala diinay hadal kasta uu ku dhahay namduusaan waxa fariin soo direystaan waxaan taasay shir degdeg ah ayaan qabanayna. timka hore markay isku imaadaan waxay dhaysaa shirka ugu badan waxaa iskale namduusaan. kadib waxay dhiganaysaa wartiimka oo dhan waxaan dhiganayay xafiiskooda. kadib namduusaan daalni waxay imaanayaan la taliyooda mustiraan. kadib daalni waxay mustiraan tusnaysaa iskay ku qoran sida shirarka loo kala leeyahay. mustiraan wuxuu dhahay qarashaadka garab laydinku siin doon biray idin soo kaaraysaa. daalni waxay namduusaan ku dhaysaa mabixisa sidoo wuxuu dhahay mustiraan ayaa arrin kala hadli rabaa iyadoo way kasoo tagaysaa. kadib waxaa la gaaray habeenkii wuxuu soo waday gurigeeda isagana wuxuu ku dhahay adigoo shiraan haysan miyaa rabtaa inaan siiyo
socoto iyadana waxay leedahay sheerka weyn ah haysto adiga markasta waxaan rabaa inaan isku timahaano Namduusan wuxuu daalnay ku dhahay ayeeyda ma joogtaa waxaan rabaa inaan la kulmo kadib waxaan gelin xasuus markii uu Masaraan maanta ku dhahay waxaan rabaa daalnay inaan runta u sheego Masaraan wuxuu dhahay maxaa way degdegan ku furan sidoo wuxuu dhahay waxaan rabaa dhibaatooyin soo socdana ka hortago xasuusta kadib waxa uu la hadlaystay waxaan ku dhahay hal daqiiqo waxaan soo galaysaa gurigeeda waxaan ayeeyda u sheegaysaa inuu soo socdo Namduusan waxay hagaajinaysaa guriga kadib markay dhamayso waxay gudaha soo gelinaysaa Namduusan daalnay waxay Namduusan baraysaa ayeeydeeda Namduusan wuxuu kaliya xasuus markay tusaal joogeen waxay isku arkeen daalnay ayeeydeeda waxaan maqlay markay digtoorayso u sheegaysay daalnay ayeeydeeda inuu dhahay marka dambe si daciifayaan Namduusan daalnay uu sheegay doona xaalada caafimaad xumo ee haysta ayeeydeeda waxaan ku ogaanay in xalqad soo socoto waa ku mahadsantahay daawashada xalqad xigta bye bye